السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliya waad maqlaysaan waxa yeelaya ciidamadii musabixi 200 askari bay ku hareeraysan albaabkay soo garaaceen oo u jeeda albaabku jibinayaan dhaawac baan ahay horeyna waa ii dileen waan dhintay anigu saa ula socdo Soomaaliya waa kuwan albaab garaacaya way ku hareeraysan yihiin anigu waa dhintay Soomaaliya waa dhintay waa tagay musabixi bay dilay saa ula socdo Soomaaliya saa ula socda ha u jeedaan anu waa tagay aakharaan u jeestay meeshaan jabhad baa joogta islaamnimo ma jirto soomaalinimo ma jirto odayaal dhaqan ma jirto qabiil baa laysugu xoog sheeganahayaa ninkii hoteelka lahaa ee la hortaagan yahay anigu waa dhintay meeshaan dowladnimo ma jirto waa jabhad baa meeshaan ka jirta sharci ma jiro qabiil walowba hubkaaga qaado nin walowba hubkaaga qaado aad maqlaysaan walaalkay haa walaalkay yaa ma askarti meeshay taaganta walaalkay dad baa soo socda culamaa udiin baa soo socda odayaal baa soo socda anigu musabixi lama sheekaysanayo askarna lama sheekaysanayo ma garad dad akhyaara baa adduun weynahoo dhan hawshaan ku jira daano xanuunsanayaan yaa allah ku istaagay intaa yarta waa murgacday waxa weeye Soomaaliya waa dhintay 200 askari baan igu hareeraysan wallaahi billaahi tallaahi baan been idin sheegaynin awalna waa la idilay waana dhaawac baan ahay anoo dhaawac ah intay dhaawac tir yaani idaaweyn lahaayeen oo xaal marin lahaayeen oo magtayda bixin lahaayeen ayaa 200 askari oo jabhadii SNM la igu soo dalbaday waad u jeedaan dhaqan baan lahaa jirnay Soomaali waa la isxaal marin jiray gabdhaha la siin jiray bag baa la bixin jiray waxaas ma jirto waad maqlaysaan Soomaaliya waad u jeedaan walaalow gacaliye nimankii miyay joogaan meesha waxa weeye waan soo baxayaa odayaal baa soo socda akhyaar baa soo socota أنا مش كل شيء قلها يا وحير يقول حرمة إيكاد ولا لا لا تكعدوينها شوقو شبهدان وعقل عليا إيمانك واتغي تتكوال الله إياه ها ولا لا ضد باص عدان كيلو أنا وداو عبان هاي هوتيل كايوي شرف ما كنت شوقا dad baa soo socda akhyaara lawyer baa soo socda odayaal baa soo socda sharci baa jira dhaawac baan ahay walaalow adduweynaha dhan baa laga daawanaya 5,000 qof baa ku daawanaysa albaabkan ayaan lagu soo jabinin adduweynaha dhan baa laga daawanaya ma garad وشاق نمانكاس أنا ما عررها هي واجوغا الباب كيسو يوصل شبين عالم كالا قداوان هاي Soomaaliya u jeedaan ninkii hoteelka la soo khasbaya hoteelkay ku hareeraysan yihiin ani sakan bay albaabka soo jabin karaan anigu waa dhintay meeshaan salaamnimo ma taalo dhaqan ma yaalo dadka waa la laayaa xornimo ma jirto xorriyatul qowl ma jirto Soomaalinimo ma jirto waxa weeye waad u jeedaan qabiil bal isugu xog sheeganayaa hadda nin walowba qabiil baa tahay qabiil walowba calan taago qabiil walowna hubka qaado saasa inoo balana Soomaaliyay waa la diiday midnimo waa la diiday Soomaalinimo waa la diiday dhaqan anoo la idilay waxiniyaha laga garaacay oo madaxay dhiig ku furan yahay yaa
dhiig igu furan yahay walaalayaal halkaa 200 askari muuse bixi igu wareeji waxaan diin ma ahan dhaqan ma ahan soomaalinimo ma ahan islaamnimo ma ahan ima imaanin ima daweynin ima xaal marin magtayda ima bixin waad u jeedaa Soomaaliyeed waxaan leeyahay marka meeshaan qabiil baa la isugu xog sheegtay isaaqa dhexdiisa hadda kala baxaya nin walba hubkiisu qaadanaya walbaanta gooni u baxaya warsangeli baa gooni u baxaya gudubirse baa gooni u baxaya nin walba gooni u baxaya saa waa la diiday walaalnimo in la isu xog sheegan in la heshiiyo waa la diiday in islaamnimo waa la diiday in maaragtay jabhadeynta iyo waxa kan iyo huhaada iska daayay waa la diiday waxa weeye Soomaaliyeey nin walowba ninka xog badan ma jiro waana dhamaatay wax la yiraahdo baalki in anigii la idilay oo dhaawac ahaa tan iyo xalay ma hadlin halkaasaan gorofsanaa Soomaaliyeey aad u jeedaan Soomaaliyeey waa u jeedaan adduunyada waa u jeedaan human rights waa u jeedaan beesha caalamka waa u jeedaan Mareykan waa u jeedaa Yurub waa u jeedaa meeshaan dictatorship baa ka jirta dad soo xasuuqay way dadkaanu anigana xasuuqi baa laygu wadaa waxba ma dhimin waxba ma galabsan hub ma sito civilian baan ahay waxa weeye sharci baan ku soo galay sharci baan ku joogaa waad u jeedaan dhaawac la ii geystay haddana laygu hareeraysan yahay waa u jeedaan teleefonkayga iyo naftayda iyo baasaboorkayga iyo xoolahayga xor uma yahay waad u jeedaan xorriyatul qowl baa la caburinaya anigoo dhaawaca la caburinaya anoo saa u jaban baa la xirahaya dadweynaha arka the whole world international world you see what is going on in Africa the killing torture kidnapping dictatorship and here in Hargeisa you're watching you see it it's not hidden it's clear American law enforcement you see them what they're doing to me I'm not carrying weapons I'm not threat to anybody I'm not against anybody just because of my dream that I do believe for what I do believe nothing else and that I am against the wrongdoing that I am against killing of innocent people that I am criticizing and I am against the torture that's going on the prisons are full with innocent people there is no democracy here watch now more than 200 soldiers from only one specific tribe surrounded me and I can die any moment any second now from this time and now you hear them they are coming now I can die any moment please you see America Mr. Trump you see watch they're coming now